qaabku ay u dhaceen baabuurkan waad u jeedaan baabuur saarfo waaye taargadiisu ay tahay AF 48 saarf ah oo uu lahaa Cabdullaahi Nuur Samatar ku magac dheer caana booro oo ka tirsanaa hay'adda nabadsuudda baabuurkan labada kursi ee hore dhexdooda ayaa waxa lagu soo dhajiyay waxay qarxahay sida awood Ilaahay waa ka nabad yeelay dhaawac yar baa ka gaaray asaga wax ku gaaray cid kale wax ku gaaray ma jirto marka isaga magaciisa saddexan Cabdullaahi Nuur Samatar oo ku magac dheer caana booro dhaawac yar ayaa gaaray dhaawac yar hadii ka tirsanaa hay'adda nabadsuudda yaa kala gaari la sarnaa adinka bala macliga baa idin la tagay su'aal intaas oo idin dhameeyay nabadii بسم الله الرحمن الرحيم أنا محمد بروفيسور محمد أحمد محمود aqoonyahan falaqeeya arrimaha siyaasadda marka aniga maanta dhacdada meesha ka dhacday waxa jirtay in anigoo maraya iskoyska egas baarlamaankii hore halka waxa ka dhacday dhacdo aad u la yaab leh oo markaasi mudane xasan cali qayra meesha marayay laakiinse wuu ka horeeyay jidkuna wuu xidhnaa abeenadii baabuurta shacabka dadweynaha la soo fasaxay ayaa waxa ka dhacday meeshaas in garanaysa qarax ka dhacay baabuur loogu soo xidhay la leeyahay nabad sugidda leh wiil marka la soo baabuurka watay ayaa waxoogaa ku gaadhay isagana waxaan leenahay ilaahay ha u fududeeyo qof kalena waa la sheegayo ku dhaawacmay wax kale oo intaas wax ka badan horta kamay dhicin meeshaas waayahay adiga marka xagee joogto marka uu qarax dhacay aniga horta goob joog baan ahaa 10 daqiiqo ka hor horta ra'iisul wasaaraha wasaaradda batroolka macdanta iyo batroolka oo tan ka soo horjeeda egas baarlamaankii hore haddana noo muuqata ayuu ka soo baxay ra'iisul wasaaruhu oo shaqadiisa gudanaya waxaan u galay bangiga dhexe ee Soomaaliya sargaalka magaciisa iyo qof kale oo aniga sargaalka magaciisa ma hayo laakiin goob joogan ahaa waxaan ahaa nin goob jooga oo meeshaasi joogay markaasi arintaasi waa arin markii hore shacabka Soomaaliyeed ay u qaateen in ra'iisul wasaaraha loo dhigay shacabkii Soomaaliyeed meel walba iyaga oo ka naxsan bay ka soo gurmadeen waxayna ogaadeen inaan meesha ra'iisul wasaare wax loo dhigay ahayna wax baabuur lagu soo xidhay oo halka khasaaraha ku soo gaarsiiyay isagu markuu sargaalkan hadda waxyeelada soo gaartay ma kolonyada gaadiidka ee wasaaraha uu la socday mise kaligiis ayaa wada ma horta isfahanaa fiican ra'iisul wasaaruhu wuxuu wasaaradda macdanta iyo batroolka ayuu ka soo baxay tamarta iyo batroolka taasoo oo hawliisa shaqo u aaday iyo waajibaadkiisii shaqo aanu soo gutay uu ka soo baxay waxaan u galay bangiga dhexe si amaana oo nabadgelyo uu ku galay jidadkuna way xidhnaayeen waxay ka xidhnaayeen iskoyska labada koonay ka xidhnaayeen sida maxay hayday egas baarlamaanka dhinaca uu ka xidhnaa dhinaca sokona uu ka xidhnaa hotel saxafi ama hotel maxay hayday central xagana wuxuu ka xidhnaa Juba ilaa area-daas oo dhan way xidhnayd ra'iisul wasaaraha aaga ku jiray oo wasaaradaha kormeer ku sameynayay haddana wuxuu ku jiraa bangiga wax meeshaasi ra'iisul wasaaraha loo dhigay ma ahayna wuxuu ahaa wax baabuur lagu xidhay